wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta si ku meel gaar ah dib ugu fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkooda ku soo laabanaya. warqad ka soo baxda xafiiska wasiirka wasaaraddaasi mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ku taariikhaysan maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 22 Maarso ayaa lagu sheegay in muddo 2 maalin ah dib loo furay duulimaadyadaasi sababo la xiriira cabasho ka timid muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xaniban garoomo kala duwan oo ku yaala caalamka. wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in muwaadiniinta ka imaanaya dalalka uu ka jiro cudurka coronavirus ay qaadan doonaan amarada wasaaradda caafimaadka dalka. sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in 2 cisho kadib la joojin doono duulimaadyada caalamiga ah ilaa 15 cisho ee horey u amartay dowladda dhexe ee Soomaaliya. wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ay maanta soo cagdhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines. duulimaadka diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa imaanaya 3 maalin kadib markii ay dhaqan gashay amarkii ka soo baxay dowladda federaalk Soomaaliya ee lagu joojiyay duulimaadyada caalamiga ah si looga hortago cudurka coronavirus. diyaaradda Ethiopia Airlines ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ayaa ka soo dushay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxayna siday rakaab tiro badan oo Soomaaliyeed. ayaa diyaaradda Fly Dubai oo rakaab siday kana soo dushay Dubai ayaa markii ay hawada Soomaaliya soo gashay lagu amray in ay dib u laabato oo ayna ka degin Hargeysa kadib markii qalabka isgaarsiinta ay kala hadashay hay'adda saadaasha hawada ee dowladda federaalk Soomaaliya.